xaliimooyinka waxaa lahaa gaari iska jecelihiin wiil bajaajla ah oo maskiin ah oo maalin kaa qosliyo ku hayso intuu ku soo qaadaa jam gashay kadibna gaari raacdo qof hor ka jeclaatay marka walaalay ma dhigi kara dhibka adaa raadsaday maya yani waxyaalaha qaar markina wax adi si u maleynaysa si kar kugu noqon moogtahay qof dhan aan walaalka dhiganayay yani booska walaalkay igu jiray wax walbo ila qabanay inuu jacayl ii soo bandhigto ka filaynin waa dhibaatadaas markay gabadha aad dhahayd walaaltinimo markaa dhahayd dhibaatana ka maray haddaba iska ilaaliya gabriya walaaltinimo alla la sameeyay hadda sheeg saan lagu waxreen hadii kale booska ku xareysay ruux ku sheegay maalin wuxuu ku dhahay ninkaas aniga ma u bogin adiga qanacsan tahay la maya yani jacaylka in dhanba markuu dhahay wax camal waa maalintii lagu sheegay in Saafi jilaysid lagu dhahay karakterkeeda Saafi oo filimkan uu ku socdaa jilaysa maalinkaas sidoo ahaa dareenkaaga maanta oo filimku u dhamaadana halka ku jooga hadana iyadoo laga soo tagay markii la yiraahdo Saafi ama jilaysa aad jilaysa walaa wax iga farxad badan ma lahayn so أنا وما تعلنايا dadka يعني waqtigaas garabsiga Saafi muskuugtiin hadda Saafi yani iyo Firdawsi samahan meel iska shabahayaan karakter Qaysar wuxuu ahaa karakter aad u dhib badan like waxa matalay qof qarinay dareemadiisa adoo wax matalay aadana waxa si matalay qof dareemadiisa qarinay oo rabo inay soo ogaan dadka soo markii like table reading markii la aqrinayo karakter Qaysar waa kale laakiin ma ahayn aniga karakter Qaysar markaas soo markii karakter Qaysar la isiiyay directorku uu isiiyay I was wow like karakter aan jeclaa ahaa Qaysar iyo Saafi romantic sameynayeen maalin maqaayad la aado maalin xeeb la aado helo sida caadiga interest love interest ma maaday dhaxdiina inta sad kala joogo jilinkii waxaan u socday no Saafi ani ay shaqo ma naga raysay love interest ma jirin